garyaqaan Cabdiqani Mandela oo kamid ah aqoonyahanka da'da yar ee ku nool gobolkani Awdal ayaa waxa uu maanta markii ugu horeysay ka hadlay soo jeedinta xeerka cusub ee doorashooyinka iyo xuquuqda siyaasadda ee dhalinyarada reer Somaliland iyo sidii door muhiim ah ay dhalinyarada kala duwan ee reer Somaliland uga qaadan lahaayeen ka qaybgalka arrimaha siyaasadda gaar ahaan golayaasha deegaanka dalka ayaana waxa uu fariimo kala duwan u diray golayaasha kala duwan ee dalka waxaan ahay Cabdiqani Mandela waxaan doonayaa inaan codkayga ku biiriyo dareenka dhalinyaradu ka qabaan xeerka golaha wakiilada ay ka hor akhriyeen guddiga arrimaha gudaha difaaca iyo nabadgelyada guddigaasi waxay ka hadleen xeerkii guud ee doorashooyinka qaranka ay hor keeneen oo ay ka hor akhriyeen wax ka bedelka ay ku sameeyeen iyo soo jeedintooda ku aadan xeerkaasi waxa kamid ah qodobo kamid ah aan doonayo in halka ka taabto waa qodobada la xiriira xuquuqda siyaasadeed ee dhalinyarada ama xagga da'da ama xagga dhaqaalaha ee wajahayaan dhalinyaradu anigu waxaan qabaa marka xeerkaasi laga hadlo waa xeerkii golayaasha deegaanka xeerkii madaxtooyada xeerkii golaha wakiilada xeerkii komishanka doorashooyinka iyo xeerkii diiwaangelinta codbixiyaasha oo la isku daray oo laga dhigayo eray bixinta sida ay u dhigeen xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha anigu waxaan qabaa xuquuqda siyaasadeed ma noqon karto iib lagamana dhigi karo haddii laga dhigana waa unconstitutional oo dastuurka ayay ka soo horjeedaa sidaa daraaddeed marka la sugayo xuquuqaha muwaadinka ee la simayo waxa reeban in muwaadiniinta lagu kala saaro mudnaanta iyo maalka property iyo statusku constitutionally waa arrimo reeban waxayna u reeban yihiin muwaadiniintu sharciga horteeda ay xuquuqo siman ku leeyihiin sida nidaamka xisbiyada ay uga reeban yihiin regionalismka iyo clanismka oo ah qabiilaysiga iyo gobolaysiga arrimahaas marka waxay caqabad ku yihiin dhalinyarada sababtoo ah marka la leeyahay bulshada bulshada marka laga hadlayo muwaadiniinta la simayo waxa reeban nidaamka siyaasadeed ee xisbiyadana waxa reeban gobolaysiga iyo qabiilaysiga xagga kalena waxa reeban mudnaanta iyo maalka in muwaadiniinta lagu kala saaro markay halka joogto qodobadaasi waa qodobada guud ee general principle-ka oo ah dastuurka ee mabaadi'da guud ee dastuurka waxayna sheegayaan sinaanta muwaadiniinta iyo nidaamka siyaasadeed ee dalka marka halkaasi la soo dhaafo waxa laga hadlaa oo la yimaada xorriyadka iyo xuquuqaha qofka oo ay ugu horeyso oo laga bilaabayo xuquuqda siyaasadeed ee muwaadinka xuquuqaha marka iyo xorriyadka qofka la yimaado waxa laga bilaabayaa xuquuqda siyaasadeed oo u dhignaanaysa muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato hawlaha siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho lama oran arrimaha bulsho iyo kuwa dhaqaale waayo siyaasadda ayaa qaabaysa kuwa bulsho iyo kuwa dhaqaale sidaa daraaddeed marka laga hadlayo electoral right xaqa doorashada muwaadinku marka uu ka hadlayo albaabka ku gudban ama meesha uu ka geli karaa ma noqon karto meel uu ku furi karo dhaqaale iyo qabiil oo xuquuqda electoral right-ka taasi ma furo dastuuriyan marka ka qaybgalka siyaasadda marka laga hadlayo ee la akhriyo soo jeedinta guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca waxa ku baxaya faham darrada guddigaasi ka haysata sida dhalinyarada looga qaybgelinka siyaasadda iyo hogaaminta bulshada gaar ahaan golayaasha deegaanka waayo xukuumaddii madaxweyne Silaanyo iyo ururkii dhalinyarada ee xilligaasi uu garwadanka ka ahaa xogayaha madaxtooyada Muwarik Ismaaciil Taani oo imika ah gacanyaraha koobaad ee madaxweynaha waxay soo jeediyeen in da'da la dhimo waxa kale soo jeediyeen in dabara dhaqaale oo dhalinyarada ku gudban iyagana culayskooga la iska ilaaliyo isla xeerka xukuumadda imika soo wado ee golaha ay hor keentay xeerkan imika wuxuu ka yimid golaha xukuumadda isaga laftigiisu wuxuu yareynayaa da'dii iyo dhaqaalihii labadaba yareyntaasi uu yareynayo markaasi waxay fursad u tahay dhalinyarada haddaba markii da'dii 25 ahayd laga dhigo 30 deemaajii 20 milyan ahaana la labin laabo ma waxa loo jeedaa dhalinyarada siyaasadda laga qayb geliyo mise dhalinyarada siyaasadda hala dhaafo anigu waxaan qabaa in la leeyahay dhalinyarada siyaasadda hala dhaafiyo marka la doonayo in $7,000 shuruud looga dhigo qof dhalinyarada inuu hankiisa siyaasiga shaaciyo ama 600 milyan oo shilin oo Soomaaliland waa arrin weyn 600 oo shilin oo Soomaaliland qofka dhalinyarada reer Soomaaliland awood ma u leeyahay marka 600 ama $7,000 leeyahay
waddanka la joogaa ma Switzerland ba mise waa Holland miyaan la arkayn muuqaalka nolosha dhalinyarada reer Somaliland ee Hargeysa iyo Ceergaabo jooga ee Boorama iyo Laascaanood jooga mise dhalinyaradu ma heleen dawladnimo dhaqaale inta leeg ay ku kasbadaan dawladnimo ku sinta ma heleen su'aal baa ka tagan anigu soo jeedintaasi markaan akhriyay guddiga difaaca guddiga arrimaha gudaha difaaca iyo nabadgelyada soo jeediyeen waxaan moodayay in la hadlayay dhalinyarada Sacuudi Carabiga iyo Qatar waayo marka xaaladda dhaqaale ee dhalinyarada Somaliland la arko waxa adag ba qofka dhalinyarada reer Somaliland inuu shaqo helo haddii uu shaqo helana uu helo gaari uu shaqada ku tago haddii uu ka helana inuu guursado nolosha dhaqaale ee dhalinyarada Somaliland baa noocaas ah arinta isweydiinta mudan waxa kamid ah hadaba fursadaha siyaasadeed ma cid awood oo kaliya loo xidhi karaa looma xidhi karo dastuurkuna muwaadiniinta kuma waajibin kuma kala saarin mudnaanta iyo dhaqaalaha gobolka iyo qabiilka midna kuma kala saarin marka waxa muhiim ah dhalinyarada reer Somaliland ee inta ka awoodi karto waa la garanaya waa dhalinyarada tijaartu dhaleen dhalinyarada ganacsatadu dhaleen iyo dhalinyarada siyaasad intaasina ma aha dhalinyarada dalka wandiri gelinaya markasta khibradda iyo waaya aragnimada si loo helo golo deegaan oo ka soo bixi kara adeega bulshada dadkan baahida u qabaan waaya aragnimada guddidu qaateen ee ay u fahmeen in marka jaamacad laga soo baxo in kaliya waaya aragnimo la yeelan karaana iyadna ma waafaqsana lamana jaan qaadayso hababka casriga ee qofku waaya aragnimadiisa iyo experience-kiisa u dhisi karo waxaan qabaa hogaaminta qofka kuma xidhna ama qofka marka aynu nuxuriyeen marka ka qaybgalka siyaasadda la leeyahay kuma xidhna oo lama oran karo marka ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada laga hadlayo hogaaminta iyo ka qaybgalka siyaasadana nuxur ahaan looma fahmi karo ama lama oran karo ma qofku inta uu leeyahay dhaqaale iyo hanti waa inta uu leeyahay karti iyo wax qabad maaha inta uu qabiilkiisu tiro leeyahay waa inta qofnimadiisu tayo leedahay maaha inta gugiisu jiro waa inta uu garaadkiisu jari karo maaha inta uu leeyahay xulafo iyo adduun waa inta uu xilkasnimo iyo dheergaradnimo leeyahay maaha inta uu qabiilkiisa jecel yahay waa inta uu qarankiisa samata bixin karo maaha inta uu hadli karo waa inta uu hawl qaban karo maaha inta uu dooq iyo damac leeyahay waa inta uu dadaal iyo dulqaad leeyahay maaha inta uu kursiga iyo uu hayn karo waa inta uu saameyn karo taariikhda iyo nolosha dadka waa inta uu hogaamin iyo halabuur ku qalbaysan anigu sidaasaan qabaa waad mahadsantiin